voting justice and matters. security outside of Your the vote Senate matters. hearing Against the discussing will, You ridiculous. voted majority of voters. qolooyinkii Republicaanka ahaa ee midigta fog ee xisbiga Donald Trump ee conservative-ka ayaa waxay bilaabeen in ay boobaan kuraasta dadka black ah ama black Afrikaanka East Africa ka soo jeeda madowga ah in degmooyinkii ay matalahayeen ay boobaan ayay bilaabeen. Mareykanka sidoo kale waxaa ka socota oo qolooyinkan ay ka wadaan cidii macnaha ay sheegay tabar yar hal xoogo ayaa ka socoto degmooyin waxaa jiro ayaga ay ku badan yihiin qolooyinkan ay daris leeyihiin sidoo kale waxaa jiro gobollo ay qolooyinkan Republicaanka ah ee Donald Trump xisbigiisa ay aad ugu badan yihiin goboladaas ama isteediyadaas ayaa waxaa kamid ah Florida iyo Tennessee marka degmooyin waxaa jiro hal iyo labo gobol kasta ku dhex jiro oo dadkan black ah ay matalaad ku lahaayeen matalaadii ayaa la baabi'inaya kuraastaas ayaa laga xoogay si macnaha ay sheegay aan waafaqsaneyn sharciga dastuurka gobolkaas ama goboladaas aan soo sheegnay iyo waliba gobolada la xoogay ilaa iyo hadda ay aad tiradooda u sii badanayeen gobolka Tennessee hal kursi ay ka dhaceen oo macnaha ay sheegay sidoo kale GOP ay u bedeleen ama xisbigooda u bedeleen Florida 4 kursi ay kaga darsadeen ayadoo wax referendum ama cod bixin ah loo sameeynin sida loogu codeeyay kuraasta Virginia ay macnaha ay sheegay maxkamadda ay kansashay waa u soo noqonayna laakiin sidoo kale Missouri waxay uga darsadeen hal kursi oo black ay lahaayeen ama qolooyinkan madowga ah ee ayaga lahaayeen ama ay ka soo galayeen oo sidoo kale dimuqraadi ah ay kaga darsadeen maadaama gobolkaas ayaga ay ku badan yihiin Missouri sidoo kale North Carolina laba kursi oo congressional ah ay kaga darsadeen ama heer federaal ah ama macnaha ay sheegay xildhibaannimo ay kaga darsadeen Texas waxay kaga darsadeen 5 kursi oo xildhibaannimo ah oo aan wax referendum ama codad ah aan loo qaadin sida loogu qaaday gobolka Virginia oo loo codeeyay maxkamadana ay laashay macnaha ay sheegay saacadihii la soo dhaafay oo waxba kama jiraan ku tilmaamtay ama unconstitutional in constitutionka ama dastuurka Mareykanka arintan ay ka soo horjeedo ayaa sidoo kale sidaas si la mid ah dadkii black ahaa ee degmooyinkaas aan soo tirinay matalayay oo ilaa iyo tabaneeyada gaarahayo ayaa macnaha ay sheegay sidoo kale banaanbaxyo waaweyn ka qabanayo Mareykanka banaanbaxyadaas ayaa sidoo kale aan u muuqanin kuwo macnaha ay sheegay aan meel gaarinin u muuqdo sidaas si la mid ah sidoo kale qayla dhaan fara badan ayaa jirta qolooyinkan cunsuriyiinta ah waxay marayaan galaangalkii ugu dambeeyay maadaama qolooyinkan sidoo kale dimuqraadiyiinta ah wax yar ay u jiraan inay aqlabiyada ku guuleystaan ayada oo sidoo kale doorashadii midtermka aan la gaarin ayaa degmooyin fara badan intii dagaalkan iyo waliba waxyaabahan ee Mareykanka ay ka socdeen iyo waliba redistricting-kan Donald Trump uu ku mashquulsan inuu degmooyin uusan lahayn uu xoogo ayaa Congress-ka Mareykanka qolooyinka hadda ku matala dimuqraadiyiinta ayaa soo badanayay oo hadda dhowr kursi oo kaliya ay dheerihiin oo fara ku tiris ah marka qolooyinkan galaagalkii ugu dambeeyay ay marayaan dadka ay xoogayaan ayaa sidoo kale ah dadkii black ah laakiin waxa ayaan darro weyn ku noqonayso dadkan black ah inay ku hanjabeen in ay ka codeyn doonaan qolooyinkan oo horey ugu soo codeyn jireen ama significant votes ama codad waxgal ah macnaha millions ah ay ka heli jireen qolooyinka Republicaanka ah ayaa markii la ogaaday in segregationkii 1960kii iyo wixii ka horeeyay ama 1960kii dadka balaaga lagu takoorayay sidoo kale macnaha ay sheegay jaamacadaha gooni loo bixin jiray ama gooni macnaha ay sheegay trainingkooda iyo waxooda loo siin jiray la gacan bidixin jiray 1960kii iyo wixii ka horeeyay macnaha ay sheegay u banaanbaxayaan in sidii si la mid ah haddana ay u dhaqmayaan ama loola dhaqmayo qolooyinkan maga macnaha ay sheegay sidoo kale systemka ay rigging ku sameynayaan systemka sidoo kale khalkhal gelinayaan laakiin waxay ugu hanjabeen codbixinta soo socota general election-ka ee 2028 madaxtinimo inay kursiga dhaafin doonaan qolooyinkan Republicaanka ah haddii xitaa Republican ay ahaayeen ama black ay yihiin ama black ay ku abtirsadaan hadda ay ogaadeen in Mareykanka laga nacab yahay waliba qolooyinkan Republicaanka ah ay u maleynayeen inay jecel yihiin haddii ay noqoto gobolada qaar intooda badan sida gobolka Texas oo kale degmooyin waa ay ku darsan karaan oo heer xildhibaannimo
xildhibaano booskooda macnaha ay sheegay waa la keeni karaa xildhibaano kale oo Republican ah xildhibaanadii dimuqraadiyiinta waa lagu bedeli karaa sidoo kale degmooyin way fududahay in la bedelo laakiin madaxtinimada marka ay noqoto qofka madaxweynaha loo dooranayo dadka ayaga ayaa go'aan ka gaaro halkaasi disadvantage ama faa'iido darro ama khasaaro aad u baaxad weyn ayaa qolooyinkan Republicanka ama xisbiga Donald Trump ee GOP conservative-ka ah ee cunsuriyiinta ah jab xoogan ayaa halkaasi ka soo gaarayo maadaama ay isku direen black population-kii Mareykanka oo intaas milyan ah Soomaalida xataa ay ku jirto laakiin Soomaalida ay macnaha significant number ama dad aad u tiro badan aysan ahayn oo hadda nus milyan meelahaas ay gaarayaan marka Mareykanka la qiyaaso inta joogto laakiin qolooyinkii kale ee black ahaa ee Afrikada kale ka kala yimid oo East Africa ka yimid Central Africa West Africa meelahaas oo dhan ka yimid ayaa tiradooda aad ay u badan tahay oo halkaasi waxay ka heli jireen codad fara badan oo ayaga ay ku sasaban jireen gobolka Texas sidoo kale waxaa la soo sheegayaa in significant number ay ku leeyihiin sidoo kale gobolka Texas waxaa la soo sheegaa in 5 degmo oo ay ka xoogeen oo GOP ay u bedeleen dimuqraadi ahaayeen marka taasi waxay ku tusaysaa in sidoo kale khalkhal iyo waliba sidoo kale cabsi fara badan ay jirto kuraas ay boobahayaan qolooyinkan kuraasta ay ka boobayaan qolooyinkan dimuqraadiyiinta ah laakiin presidency-ga ama madaxweynenimada sidoo kale aana macnaha sheegay la xoogi doono sidoo kale arin waxaa jirto aad macnaha sheegay loo bumbuunayo ama hadda Mareykanka uga socota laga karkarinayo sidoo kale Gavin Newsom oo gabanaha gobolka California uu xoog uga qayb qaadanayo in California maadaama Republicanka ay ku badan yihiin konton iyo laba degmana ay ka kooban tahay ama 52 districts konton iyo labadaasba dimuqraadi laga dhigi rabo ama la dimuqraadiyin rabo taas oo sidoo kale dhabarjab weyn ku noqonaysa waliba comeback-gii ugu xoognaa oo looga hortagayo qolooyinka redistricting-kan ay sameeyeen gobol kasta inay dhowr degmo oo 5 degmo ay ugu badan tahay gobolka 5 degmo 2 1 4 iyo 1 macnaha sheegay intaas la isku dardaray xataa aysan dhannayn 15 kursi ay kaga darsadeen laakiin ayaga ilaa iyo konton iyo labada sheegay degmo ama konton iyo laba district oo congressional ah ama Congress-ka Mareykanka ah heer federaal ah ayaa qolooyinkan dimuqraadiyiinta waxay wacad ku mareen inay ku soo dari doonaan sidoo kale redistricting-kii inuu bilaaban doono inkastoo maxkamadaha qaar ay ilaa iyo hadda ay adkeenayaan waliba qolooyinkan maadaama gobolada qaar sida gobolkan hadda lagu magacaabo Virginia bipartisan uu ahaa oo labada xisbiba 6 iyo 5 kursi ay kala ahaayeen markii horeba macnaha sida isku cagacageen laakiin gobollo waxaa jiro wada dimuqraadi ah macala maxkamadahooda iyo waxaasi oo dhan aanan macnaha sheegay aysan u babacdhigi karin qolooyinkan Republicanka ayaa sidoo kale jiro sidoo kale waxaa jiro waxa loo yaqaan blue wave oo dadkii hadda ay ku daaleen booliisiyadan qaabka daran kuwii dimuqraadiyiinta ahaa xitaa macnaha sheegay Republicanka ahaa iyo kuwii independent-ka ahaa ay ku daaleen gas prices-kii oo cirka maalin walba maalinka ka dambaysa sii marayo sidoo kale macnaha sheegay cunsuriyadii oo xargaha goosatay Donald Trump oo aan waxba loo sheegi karin dadka uu asaga ku wareejin rabo madaxtinimada Mareykanka ama uu rabo uu ololeynayo oo Marco Rubio iyo sidoo kale JD Vance ah aysan macnaha sidoo kale isla policy-ga Donald Trump ay u isticmaali doonaan oo la wada ogyahay taasi la ajligeed ay sidoo kale dadka uga yaacayaan wax yaraan isla daawano sida ay wax u dhaceen iyo waliba tension-ka ama xiisadda ka taagan sidoo kale gobolada Mareykanka cunsuriyiinta sidoo kale dadka balaaga ah kuraasta laga xoogayo iyo waliba sida ay damacsan yihiin Today, justice was not served. In Virginia, against the will of the majority of voters, against not one but 2 legislative votes, the Supreme Court threw out the redistricting effort. This comes on top of a United States Supreme Court throwing out voting rights for minority communities across America. It comes on cross of states like Tennessee and Florida going against their very state constitutions. We see this administration use every tool in the toolbox and now expand to trying to, frankly, rebut the will of the people. But you know what? Enough of us know that Donald Trump's direction for our country is the wrong one, that our country is better than this. We have to recognize that they will use every tool. dadka shacabka sidan ay u hadlayaan Republican iyo dimuqraadiyiin waliba independent waxay leeyihiin
sidan ma aha sidii Mareykanka loo aas-aasay, ma aha dimuqraadiyad, ma aha sidoo kale sheegay isku dhaxnoolaasho iyo progressiveness, ma aha kama turjumaysa dimuqraadiyadda Mareykanka. cunsuriyeyn ayaa socoto ay leeyihiin dadka shacabka, kuwa independentiga ahaa ayaa ugu daran sidoo kale sidaas isla mid ah. marka Donald Trump waxaa muuqato in khalkhal siyaasadeed uu soo wajahay sidoo kale aad oo waxba laga qaban karin